السلام عليكم إن كسر دواد بيرتيدا maalmahan waxaan isdhahay maalin walba oo Ramadaan ku jirno video cusub soo saar oo beerta ku saabsan laakiin gaajada iga badatay wallahi badalka marka qaado waxa dhahayaa sirrta kugu celiyo jiifto anyways waa caajis maalmahan gaajadana waa iga badatay so my schedule kasta is bedel doona insha Allah but I think the last video aan soo saaray waa aragteen oo maleena meesha oo geedka laga soo bixiyay laba geeda gurigeyga laga soo saaray in the last video aan soo saaray I think like a day ago 2 days ago anyways meeshaan ay hadartaan nuur ay u eg tahay is very beautiful waan tusaay hadda sida u eg tahay and then maanta waxaan rabaa inaan beero 2 or 3 blueberry plants so let me show you hadartaan meeshaan ay sida u eg tahay kabacdan we're going to go plant insha Allah so hadartaan laamigan taaganahay guriga hortiisana waa tan geedka aan reebo waa kana geedka aan gooyna dhinacaan ka soo baxay casirka marka la gaaro masgalabta marka la gaaro meeshaan hoos yar soo noqonaysa laakiin most of the subax dhan ilaa galabta dhan meeshaan ay full sunlight ay helaysa meeshaan dhan waxay ahaan jirtay saacadan ilaa subax dhan waxay ahaan lahayd mugdi wada ahaan lahayd because of geedka weyn meeshaan yaalay waxyaashan hadda ugu soo horeeya arkaysiin waxa waaye the tulips waxa haya ayagoo different colors meeshaan igu beeran yihiin these are the Vidal ala dhahaa and then waxa hadartan soo baxooyaan dhinacaanita the pink iyo red isku bedelayaan laakiin they're very very beautiful masha Allah qoraxda markay si fiican u jirto waxyaashan dhan way wada furan yihiin markii uu maqribka uu habeenka la gaari rabana ayaga dhan waa isxirayaan inay koofi leeyihiin camal kuwa jaalahan xagga uga jeedina oo maleena but masha Allah waxa kale oo hadartan meeshan iyaalo some yellow ones meeshan ku jiraan and I don't know colorada kuwa noqon doonaan hadartan but there's a lot of tulips oo meelaha hadda kasoo bixbixayaan meeshaan ay tasawirkeeda aan tusaa markuu geedkan oo la jiray meeshaan ay sida u eg tahay sida uu ekaan jirtay ilaa hadartan waxa hadartan la dhaho edging sameynaya wali meeshaan qodqodooya line kan ay mujeedido meeshaas ay sidoo more defined u yahay ee meeshaan ay marka xafashka iyo cooska marka isku baxaan sidaan way kaanaysa so I'm working on cutting it right now so that markina more defined oo noqoto line kaaseta oo sa wareegana jeclahay quruxdaasete meeshaan ay wali I'm going to plant a lot more plants meeshaan it's very open hadartan ani soo dhaweey so meeshaan dhexda dhan is very open halkaas ilaa geedkaas dhexdiisa ilaa meeshaan dhan is very open hadartan so shaqo badan aan soo socoto insha Allah so geedka meeshaan aan ka bixiyay wuxuu ahaay pine tree ahaay and wuxuu jecel yahay wax acidic or at least the roots kiisa acidic so meel walba oo u dhow meeshaaseta oo waxyaal kale igu beernaan jiray si fiican uma bixinin because waxyaasha igu beernaa meeshaan acidic ma jeclaan so jaawa aragteen meeshii xididka dhan waa la shiiday so waxaan isku dayayaa insha Allah I have 5 blueberry plants iyaalaan meeshaan oo caagada igu jiraan so kuwaas aan rabay inaa 2 to 3 blueberries inaa halkan aan ku beero so waxaan jeclaan lahaa meeshaan ma arkina guriga hortiisa waa ee qudaar badan ma jecel inaan ku beero laakiin fruits aan rabay inaan ku bilaabo sida ma arkina dadka markay gaaraasha soo dhigtaan ma arkina waxyaashaan ay ku nuursadaan qolalkeen dirishadahooda xagee ku yaalaan laakiin meeshaan markii la imaado sida ma arkina oo amiraha uga guran karno
Okay, so meesha hadda waxaa ku beeray 2 blueberries aan ku beeray meeshaan ka soo saaray geedkii, and then waxaa kaloo kusii kordaray aan ku firfirdhiyey around the plant maxaa la dhahaa acid soil acidifier so the blueberries meesha ku beer ay si fiican uga helaan. Insha Allah hadartaan 2 bas meeshaan ku beer doonaa, 3 kaleeto oo blueberries kaleetana waxaan dhahaa gadaalan ku beer doonaa insha Allah. And if I find more plants arka meeshaan inay ka helayaan waan ku soo badan doonaa insha Allah. Waxaan maqlay ubaxyaashoodana ma sha Allah qurux waaye, waa ogtihiin meeshaan inta dhan it's all about the flowers bas waaye meeshaan. So anyways, I'm so very hungry, so guriga lagu laabanayo ciday. Don't forget to subscribe insha Allah and give me a like wa inoo maalin kaleeto. Maca salaama.